السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتاي دمان قيارتا كنالكن كسو دوادا waxaan soo gudbin doonaa channelkan waxyaabo badan oo aad iyo aad faa'iido ugu leh dadka doonaya inay ganacsi abuurtaan. Saad ognahay iminka wadankeeni dad badan waxay doonayaan qof walba inuu naftiisa maareeyo, dadkiisana wuxuu taro noloshana horumarka gaaro. Taasna waxaa sababa inaad horta marka hore aad adigu tahay qof hal abuura. dabcan hal abuur waxaan ka wadaa qof aad tahay inuu shaqo abuuro oo isaga loo shaqeeyo oo aan isagu shaqaale ahayn. Saad ognahay dadku markay shaqaale yihiin horumarkooda ma gaaraan, daily life-kooda kama bataan. Marka channelkan waxaad ku baran doontaa mawduucyo badan oo ganacsiga, sidoo kale ganacsi kasta oo aan ka hadalno waxaanu sheegi doonaa insha Allah inta qiimo gelaysa. sidoo kale waxaanu ka sheegan doonaa positive-kiisa intuu boqolkiiba positive yahay uu faa'iido leeyahay, sidoo kale intuu boqolkiiba negative yahay uu faa'iido dare leeyahay. ayaan ganacsiga aan ka sheekeynayno ku sharxi doonaa inagoo welibana sheegayna barta uu ku habboon yahay iyo magaalada uu ku habboon yahay iyo sida looga faa'iideysan karo iyo waqtiga uu saacidayo in waqtigiisa la joogo iyo inaan waqtigiisa lahayn. sidoo kale waxaanu sheegi doonaa in ganacsatada ay maanta kasii faa'iideysan karaan ganacsigii hore soo abuureen oo iyaguna ay hore ugu sii socon karaan oo ay ka faa'iideysan karaan kanaalkan oon soo gudbinayna iyagana macluumaad badan oo ay maanta ganacsiga ay leeyihiin kusii korsan karaan, ay kusii abuuri karaan ganacsi kaloo lamida iyagoo ganacsigoodii hore ku guuleystay ama guuldaro ka dambana ku guuleysanaya. waa tahay waxba channelkan yaan warni u daalin. runtu waxa ay tahay channelkan waxaan soo koobi doonaa waxyaabo asaasiya oo ganacsiga asaas u ah iyo sidoo kale wadankeeni inta ganacsi ka banaan haddana ay dadku usan arkin. waxaad arkaysaa wadankii dadka badankoodu inay ku oranayaan wadanka shaqo ma jirto, wadanka shaqo ma jirto. waa run shaqo ma jirto oo shirkad aad u shaqaysaa iyo kambaniyo ma lihin oo warshado ma lihin oo deeshidaal ma lihin oo aan saliid ma lihin. dabcan wadanada hormaray waxay ku hormareen ma hayno, waayo wadanadaas waxay shaqo ku hayaanba waa intaa. marka maadaama wadankeena taasi jirin laakiin wadankeena waxaa jirta shaqooyin badan oo banaan oo qof sameeyo loo baahan yahay, taasi waa huwaal. laakiin shaqaalaha badan oo shaqo la-aan way jirtaa, waynu ognahay. haddaba shaqaalaha badan shaqo la-aantahayna waxaan laga bixi karaa markaan inagu aynu samaysano shaqooyinkaasna waxay u baahanayaan shaqaale kumanaan qofa. markaas taasi waxay ku suurtagelin doontaa insha Allah inaad kanaalkan ka noqoto kanaalka aad ku noqoto qof ka faa'iideysta. ayaan filayaa dhammaantiin inaad ka faa'iideysta baa kanaalka filayaa oo muhiimadda uu xambaarsan yahay ay tahay qaabka ganacsiga wadankeeni. ganacsi noocee ah ayaa ka banaan, qiimahee ayaa furaya, sidoo kale muxuu u baahan yahay? ma wax dibadda looga soo dirayo qalabo la soo iibsanayo wadanka yaalay buu u baahan yahay? ma wuxuu u baahan yahay wax wadanka yaala halkee laga furayaa, goormee la furayaa, siduu ku habboon yahay? research buuxayaa ka haya waxyaabaha soo dhabaan inay la wadaagi doonaa muuqaalada soo socda insha Allah. waxaan filayaa dhammaan kanaalkan inuu ummadda Soomaaliyeed oo dhan faa'iido yeelan doono.